السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد مالك استوى دكتور كسر وهذا برنامج كفلاقيت سياسة الحلية لو كلا أي كذا وجاء جنرال يوتيوب كافتح برودكشن عند بنو سلام يا صاحب الله في دورية أنت داود أنت الله يفكك الدم بقض بضح يسحر البرنامج كداود أنت وقت جانا وحكم بنا وركي جدا بيا مرحلة سياسة ذلك أو أن تلستاجي دورا من بيت هدو الله إدم قض بضح سيدا جاك أحد برنامج كداود أنت روح حكم بنا arrinta heshiiska shidaalka dalka iyo qaabka uu markii hore u socday iyo sababta keentay hadda in uu ka shifmo maxaa isku diray saddexdii qof ee heshiiska shidaalka dalka hoos ka waday isla markaana inay xaraashaan doonayeen shidaalka dalka Soomaaliya waa wasiirka batroolka madaxweynaha mudahleedku ka dhamaaday iyo waliba Fahdi Yaasiin warbixin ku saabsan arrintaasi ayaan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa hadduu Allah idmo qodobada kale barnaamijka ku daawan doonta waxaa ka mid ah kooxda farmaajo waxay mar walba shacabka iyo sharafta u sheegi jireen in uu wasiirka koowaad ee dalka waxaan ula jeedaa ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Qoble inuu dhacayo hantida qaranka Soomaaliya maanta shacabkaygu waxay arkaan dadka wax dhacaya ee boobaya inay yihiin kooxda farmaajo hore loo yiri tuuga intaadan tuug dhihin buu tuugu yiraahdaa warbixinta sirta kooxda farmaajo aflagaadeynta ra'iisul wasaaraha iyo qorshaha ay ka wateen ayaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa hadduu Allah idmo ra'iisul wasaaruhu waa shakhsi aad u foojigan isla markaana waajibkiisa u gudanaya sida ugu dhaqsiyaha badan taa micnaheedu waxa weeye markuu wasiirka batroolka heshiiska hore ka saxiixay Roble wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee kor tagay Maxamed Farmaajo markuu arkay inuu Roble hadlay kadib ayuu ka daba hadlay sababta keentay Roble inuu sida u foojignaado isla markaana uu degdeg uga hortago qatar kasta oo qarankeena Soomaaliyeed soo wajahaysa ayaan barnaamijka kugu iftimi doonaa iyo waliba sababta uu Maxamed Farmaajo ugu dayday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Qoble maadaama uu arrinta gaashaaka ku dhuftay warbixin ku saabsan ayaan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa waxaad VOA-da ka dhagaysateen wasiirka batroolka oo ka shifaya Maxamed Farmaajo oo isqarinayay oo waliba shidaalka isagoo wax ka ogaa ummadda Soomaaliyeed been u sheegayay mar hadduu yiri wasiirka batroolka Farmaajo waa beenlow maxay kula tahay adiga imika daawanaya barnaamijka maadaama anigu in ka badan 4 sano ku sheegi jiray Maxamed Farmaajo kalaam xalaala inuunan aqoonin markasta isaga ayaa falka sameeya wuxuuna ummadda isaga dhigaa inuu yahay shakhsi wadaniya oo ka nadiif laakiin ummaddu mar walbaba lama siri kareen maalin qura ayay xogta ogaanayaan warbixin ku saabsanna barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa hadduu Allah idmo Maxamed Xuseen Qoble wuxuu bannaanka u soo saaray nin isqarin jiray oo muddo dheerna dadka dhibaatayn jiray maantana ku qasbanaaday inuu ummadda Soomaaliyeed kor yimaado maxaad kala socotaa Fahdi Yaasiin qorshihiisu siduu ahaa iyo siduu isku bedelay mar hadduu Maxamed Xuseen Qoble agta u saaray fahadkii isqarin jiray wadu jeedaan maanta dadka Soomaaliyeed way wada arkayaan cabsida iyo fulinimada ka muuqata dhowr jeer buu bedelay ama isku dayay in uu faceka dhanka tiknoolajiyada casriga uu ku bedelo sida qaadista applicationada qaar oo mobilada lagu shubo oo taa kalifaya in qofka wajigiisa lagu bedeli karo oo adiguba aad samayn karto waxaan ku soo gudbin doonaa fulinimada fahad waji bedelashada iyo waliba ra'iisul wasaaruhu sida uu agta ugu saaray warbixinada kale barnaamijka ku maqli doontaa waxa qayb ka noqonaya beelihii banaadiriga oo qeyb Maxamed Xuseen Qoble inuu yahay shakhsi daacada waliba ka laabtay gafkii ay meediyaha ugu geysteen isaga iyo waliba reerka uu ka soo jeedo oo isla iyo sharaf leh ee habar gidib waxaan ku soo gudbin doonaa banaadiriga iyo waliba qaabka ay u qanceen xilligan warbixinada kale barnaamijka ku daawan doontaa waxa qayb ka noqonaya dhaqaaqay Beledweyne cabsida iyo murugada ka muuqata ninka Fahdi Yaasiin iyo waliba dhaqaaqa reer Beledweyne oo hakad la geliyay sida aan bahore u iftiimiyay qaabkay wax u socdaan iyo xaalka Beledweyne ayaan barnaamijka kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan barnaamijka ku daawan doontaa mar walba barnaamijyada waxaad ka daawataa channelka YouTube ka Aftahan Production soo dhawaada aan ka bilaabo ummadda Soomaaliyeed inay runta ogaato waa muhiim shacabkuna xaqiiqda markii loo sheegayo waa in ay si degan u fahmaan jadwal walba oo socda Maxamed Xuseen Qoble waxa ka horeeyay ra'iisul wasaare la yiraahdo Xasan Cali Khayre laba nin oo heshiis ah oo waliba dowladnimada ku ciyaaraya ayuu Xasan Cali Khayre ku qasbanaaday inuu jeebkooda galo waxa uu jeedaa Fahdi Yaasiin iyo Farmaajo hal maalin lama arag Fahdi Yaasiin intii uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu hogaaminayay xukuumadda weligii iskuma dayin xitaa in uu ogolaado hal sawir dhowr jeer ayaa madaxtooyada dad booqday waxay ka dalbadeen in uu la wadaago sawir asayeeshe wuxuu sheegay inuusan dadna isla sawiri karin isagana aan la sawiri karaynin xataa xilligii uu Khayre joogay Fahdi Yaasiin wuxuu awood u lahaa inuu garoonka ka dhoofo iyadoo xitaa aynan immigration ku arag waxa uu awood u lahaa inuu garoonka ka soo dego iska daa immigrationka xataa shaqaalaha airportka inaysan arki karin waqtiga uu ka soo dalayo sabab la xiriirta inuu ahaa shakhsi keligii ku amar ku
taagleynaya dowladnimadii sharafta iyo ciisada lahayd muddada iyo hawshii uu watay xukuumadii Qayre iyo isaga iyo Farmaajo sida ay qorshuhu ahaa waxaa bedelay markii Maxamed Xuseen Roble Qayre lagu bedelay Qayre markuu meesha ka baxay Maxamed Xuseen Roble uu yimid fahadkii iskhariijay hal maalin ayuu banaanka ku keenay fahadkii laga baqi jirana wuxuu ka dhigay bisad aan maanta haba yaraatee cid rur iyo qabow uu ku haya ayna jirin ma ogtahay xilligii Roble ka hor inuu Fahad Yaasiin ahaa qofka magaciisa marka la maqlo aad looga baqi jiray gudaha magaalada Muqdisho siyaasiyiintuna ay ku qasbanaadeen mar walbaba in ay xiriir la sameeyaan iyagoo baqdin ka qaba amnigooda inuu khatar gelin karo laakiin Maxamed Xuseen Roble wuxuu banaanka keenay Fahad inuu yahay shakhsi iska caadiya awood uu dheeryahay dadka kalena aynan jirin midda kalena uu adres ka yahay magaalada Muqdisho xaaladda uu banaanka keenay Maxamed Xuseen Roble ayaad maanta qayb ka mid ah indhiina aad ku aragtaan Fahad markii hore qorshihiisu wuxuu ahaa iyo maanta qorshihiisu sida uu yahay waa kaaf iyo kala dheeri fulinimada Fahad Yaasiin ninka aad ka baqi jirteen waad aragteen maanta inuu wajiyadiisa ku bedelayo applicationka lagu yareeyo wajiga oo inta badan loo adeegsado teknolojiyadda casriga sida mobileka oo aad ku soo degsan karto markaad ku soo wartana aad dib u dhigi karto 10 sano oo aad dhigi karto xitaa age-kayga ilaa 15 sano dib u dhig wajigaagu uu yaraanaya harba nooc waxaad ka garan kartaa saddexda sawir ee laga faafiyey Fahad Yaasiin midka kale oo ay kaba yaraatay ma jiro dadkayga maanta horumarkan iyo teknolojiyadda fahansan waa boqolkiiba in ka badan 90 waqti badan ku qasaarin maayo maxaa fulinimada Fahad keenay maxaa keenay inuu maanta banaanka isu soo dhigo aaway cabsidii laga baqi jiray meeyay awoodii u lahaa waa maxay bisadan aad muddadeen inuu maanta baiya ta'miin aan lahayn shacabka daawanaya barnaamijkayga ay leeyihiin waqti badan hanooga qasaarin tani waa dadaalka Maxamed Xuseen Roble tani waa iftiinka Maxamed Xuseen Roble bulshada Soomaaliyeed oo mar walba ugu hagayo hadba meesha wanaagga iyo horumarkaba uu jiro waayahay aan intaa uga tago awoodaha ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble mar hore soo koobi karo marka intaa baan uga tagaya beel ka tirsan baraadiriga ayaa fududaaday waxaana laga dhaadhiciyay arrin aan waxba ka jirin meediyaha ay la wadaageen inuu ra'iisul wasaaruhu reerkiisa u boobayo kursi dad badan ayaa arrintaasi qandaraas lacageed ku soo qaatay aflagaadada ra'iisul wasaaraha iyo in uu banaadir u boobaya habardidir waa sumcad darro aad u weyn lagu dhaawacayo ra'iisul wasaaraha markastana waxaan ahay derbi Maxamed Xuseen Roble hortaagan mar walba ummadda Soomaaliyeed layl u ah aniga runta Maxamed Xuseen Roble ma qariyo wasiir ka tirsan xukuumadda ma ahi afayeen u shaqeeya ma ahi xafiiskiisa kama tirsanin waxa weeye waxaan ahay shakhsi xaqiiqada iyo dhabta ka hadla Roblena runta marka aan sheegayo cidna uma helaysto hadduu wanaagiisa aan sheegayana cid aan ugu hebaysanayo malaha markuu qaldan yahayna waa sheegaa Maxamed Xuseen Roble ma jiro kursi uu banaadiri ka boobayo u boobaya habardiga wax ka jira haba yaraatee malaha waxaa muuqanaya marka inay dad isku raadinayaan wax aan isku dhoweyn dad badan baa waxay rabaan in ay qalad qof kale uu leeyahay Maxamed Xuseen Roble dusha u saaraan kula aflagaadayaan ama ku habaaraan beesha habardiga walaalahay reer faqii waxaan leeyahay shalay waa laydin qalday waad ka soo noqoteen shalay sida la idin qalday oo maanta u aragteen wanaagga iyo horumarka oo aad u aragteen ra'iisul wasaaruhu inuunan ahayn nin qabiil waad ku mahadsantihiin inaad ku ducaysaan aadaan u soo dhaweynayaan habaarkiinni shalana dee waxa uu la mid ahaa dadka qob moos idin taraarixiyey oo aan ula jeedo dadka beenta idin sheegay dadkaasaa kalifay marka runta rabbi baa og marka waxaan leeyahay waad ka soo noqoteen dadka maanta marka ummadda ka dhaadhicinaya inuu Roble uu yahay shakhsi dibindaabyo badan waxaan leeyahay horta iimaanka Allah idin geliyo waxa weeye hawiye Roble markuu heray umbu dhaqaaq bilaabay Roble ka hor hawiye dhaqaaqiisu waa liitay haddii inta uu Roble joogay uu joogi lahaa Xasan Cali Khayre ilaahay baan ku dhaartay ummadda Soomaaliyeed marqaatiga ka yihiin xataa qof dhaqaaqdo kale lama arki lahayn Maxamed Xuseen Roble wuxuu keenay maanta in si xorriyada loo adeegsado warbaahinta qaranka si xorriyada maanta in Muqdisho loo tegi karo maanta mucaarad iyo muxaafad qof aan magaalada Muqdisho tegi karin ma jiro laakiin waa la hadadi jiray xilliga Xasan Cali Khayre marka waa kaaf iyo kala dheeri marka waxaan leeyahay alxamdulillah inaan dhahno ayaa noo muhiima mar kastana wanaagu marka uu jiro dad baa qandaraas ugu siiyaa bal inay adiga kaa buufiyaan oo ku yidhahdaan ra'iisul wasaaraha ka carara ra'iisul wasaaraha waa dibindaabyo miiran ra'iisul wasaaruhu waa tuur bal kooxda Farmaajo eega waxay naga dhaadhicin jireen inuu yahay ra'iisul wasaaraha nin baahan hantida dhacay ilaa tuug intaadan tuug dhihin ayuu tuug ku yidhaahdaa ayagii baa dadka dhici jiray ayagii baa dadkii dhacay oo qarankii Soomaaliyeed dhacay ummadana waxay ka dhaadhicin jireen inuu ra'iisul wasaaruhu wax dhacay maanta dadku waxay arkeen Farmaajo shidalkii boobaya iyo Roble ka celinayay sidii wuxuu jira
صوتين لها روبلا أيا هنتظر قرن كنوعية وما حي روبلا واحد دفاعي والأول شيء أهرتي من اللي أولا لها روبلا أيا نعيا هنتظر قرن كواوري وقرشها markay wax doonayaan inay boobaan ay dadka Soomaaliyeed jaha kala diraan qisad dhacday 30 sano ka hor ayaan hadda idin tusaya barfiiri sida isugu egyihiin dhaqanka Maxamed Farmaajo ma ogtii Maxamed Siyaad Barre inuunan quusan 1990 oo quustay 1980 ma ogtii 10 sano in uu waday Maxamed Siyaad Barre boobka hantida qaranka isagana uu ahaa ninka dalka intiisa badan boobayay 10 sano ayuu Siyaad Barre markuu arkay inuu bixiro إلا محمد سياد بروح أركي أودي سوني بابا إيش تواصل كور أنتو نون عاري كون سجال بقول يسديتكي إلا كون سجال بقول يكوبي سجاشكي لحية لبعتكي جنوي وهو محمد سياد بروح أنت دخلنا كوبوبي ما الله يمركو حالفية دلكي حالفية بقعة ما ذكر يا مركب USC ما وحبوبتي USC ما أنت دخلنا كبرت والله مركب USC سوقريه مجال هذا مقدشو مجرين وح هنتي قرار أو بناكيل هنتي قرار كورن بتوصل كوري دلدشين أيها هنتي قرار كتير دلدشين ما أنت قربها كجوجا أيه ليه هنا هويه USC ده بجامعي أيه هنتي قرار كناعي وتوصل كوري يجابوه توصل كور روحي بوبين أيه ليه USC أنا وح كجرا مرة وأقل استشهاد حمرك مركو أكيد فرماجي وصندلك كسر قري مركو أكيد حالة سنة تهميد عن حويرة تبرسع الحياة وكذلك البوبية محيطها مركو جدا هدوه يصيروا ذلك البوبية محيطها جدا ويبقى صمع مركو وقت انت أولادا واحد أردت مركو وزيركي بطرول كفهد ياسيني فرماجو اسكوليجان قرسول صدح جيسون وحا هشيسك بطرول كان فهد فرماجو اي وزيركا سأي أولاد وفهد فرماجو وزيركي بطرول هشيسك ما أنت مصر مدبر أيو سوسري waxaana lagu yiri muddo kordhinta sababta loo raadinayay waxay ahayd in la helo muddo kordhin kadib si shidaalkaasi ay shirkaduhu u xalaashadaan hadalka faham waxay shirkaduhu yiraahdeen muddadii baa idin ka dhamaatay waa sababta loogu cararayay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya muddo kordhin sharciya loo helo muddo kordhinsiga baarlamaanka laga doonayay 12 Abriil 2021 ujeedada laga lahaa waxay ahayd shidaalka in lagu xalaaleeyo laakiin nasiib darro baarlamaanka waa dhacay muddo kordhinta waa loo diiday Maxamed Farmaajo qalayla madaxtooyada dhaxyaan cid bile aad marka shidaal hadda ka dhigaysanaysa malaha wasiirka batroolka iyo isagaba muddo marka hawsha isla waday oo xoodin ah oo shirkadaha laga dhaadhicinayay waa soo noqonaynaa annaga madaxweynenimada ku soo noqonaynaa annaga madaxtooyada joogi doona nala heshiiyay batroolka tusaasoo ah ilaa marka iyagu ay ka soo noqdaan batroolka ma hirgelay oo heshiiskaasi ma noqonayo mid dhaxalgala laakiin maxaa isku diray wasiirka batroolka iyo Fahad Yaasiin Farmaajo mar haddii hawsha socotay muddo dheer haddana laga hortagay ilaahay baa mahad iskale waxyaabaha isku diray waxaa ka mid ah marka koowaad wasiirka batroolka waa lagu shaqaysanayay wuxuu ahaa wasiir danaha Farmaajo iyo Fahad fulinayay wasiirka wuxuu arkay marka calaamado muujinaya in Farmaajo iyo Fahad ay dhabarka aadiyeen waxaa ka mid ah kursi balabada laba galay ka mid tahay xildhibaan in la siiyo oo kursi xildhibaannimo lagu soo saari doono bishan ay balantu ahayd adiga 14keedii ilaa 15 in la siiyo kursi baarlamaan wuxuu arkay marka wasiirka batroolka in kursiga baarlamaanka ee laga ballan qaaday Farmaajo iyo Fahad ay u ballan qaadeen in ay balanta uga baxeen ilaa wuxuu og yahay raggan inaysan abaal lahayn sida muddo sida ay u galeen wuxuu arkay sida caliyaro loo galay wuxuu arkay sida loo galay Professor Maxamed Umar Dalha wuxuu arkay sida loo galay Ibi wuxuu arkay raggii ka horeeyay sida loo galay wasiirka batroolka markuu arkay markay inay ballamada uga baxayaan ayuu dhabarka ka tugtay arrintii ballanku ka yahay mar alla iyo markuu yiri heshiiska batroolka taas oo dhacay madaxweynaha ayaa u mahadcelinaya Maxamed Farmaajo isla markiiba ra'iisul wasaare waa tuu reject ku qatay yiri heshiiskaas waa sharci darro Farmaajo marka wuxuu yaqaan dhaqan ah intuu asaga falka dambiga iyo boobka geysto ayuu kala hormaraya marka cadaaladdu wuxuu ku leeyahay aniga kuma jiro tusaale wasiirka taliyaha ciidanka badda ninka u diray inuu roob la caayo Maxamed Farmaajo waxa markuu roob la aflagaadeeyo wasiirkii ciidamada badda تطليع عندما بدر على هذا تطليع عندما بدر مركو أفلقادي رئيس الوزراء محمد حسين ربنا فرماجة أدري إسلام مركي وعوري حلكي ما كجوجي قالوا قالي إحنا كم جيرانك بارش كفرماجة كيف كتاع مركو أركين أهنتي الكشفتين مركو أركوزير كي بثروك نوصلتي بناك كاري ربنا وكورتني أيا بيتش كا فيلا سومالي ولا مصوري ماذا حويناها وحويني هالشيء اللي قالي كلام بتشير ولا هالشيء كم معي هذا
wuxuu ahaa muddadii la raadinayay labadii sano hawshaana muddo dheer ay soo socotay laakiin alxamdulilah intuu roob leh qaranka soomaaliyeed hor joogo waxa weeye mugdiga waa laga baxaya wax la qarin kara ma jiro hawshana ma noqonayso sida ay iyagu doonayaan calaa kulli xaal kooxda farmaajo waxay dhihi jireen maxamed xuseen rooble hantidii qaranka boobaya cidda tuugga ah maanta waa loo jeedaa cidda hantida qaranka dhacaysa waa loo jeedaa qofka hantida qaranka dhacaya iyo qofka ka celinaya waa loo jeedaa maanta waanu aragnaa in uu rooble hantida qaranka ka celinayo maxamed farmaajona u dhacay wixii ku soo kordha barnaamijyada soo socda ayaad ku daawan doontaan magaalada beledweyne iyo cabsida fahad yaasiinna waxaa muuqanaya in ciidamo fara badan lagu daadiyey magaalada iyadoo albaab walbaba askari ka tirsan ciidanka federaalka soomaaliya uu halkaa ku sugan yahay kulan ay xala qaateen isaga iyo madaxweynaha hirshabelle iyo yuusuf dabageedna waan arkaya iyadoo shacabka magaalada beledweynena ay yihiin shacab la haystayaal balse waan arkaynaa jawaabta ay ka bixi doonaan reer beledweyne dembi laga galo weligood ma iloobin waan arkaynaa halkay xaaladda ku biyo shubato barnaamijyada soo socdana wax badan ayaan ku iftiimin doonaa ku xidhno channelka youtube-ka aftahan production si ayna barnaamijyada kuu sheegin mar walba barnaamijyadeedu waxaad kala jaan qaadi kartaa channelkan youtube-ka aftahan production intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa balwaan idile meel kasta waa joogtaan nabadgelyo